السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ولا على الكسو دواء الجنة كيجا هايف مالين. خلقنا وحنا يدكسو بالبنية قصة آد ومرقبضا. حتى كهر وحد عضي ما مجوك تحجك أيا وحي المين سيدرا أديك أيد السجود سن. مركز سيتي أيا وحا أركتي جبر هو يدي أوينيسو جبري وأتمت هو يدي waxay weydiisay hooyo maxaa sidaan oo dhan ugu ooynaysaa maxaa sidaan oo dhan ugu murugoonaysaa maxaa kugu dhacay hooyadii ayaa soo fariisatay gabadhii ayay gacanteeda qabatay waxay ku tiri maamo waxaan la ilmeynayaa hadda ka hor waxaan ahaa gabar waxaan guursaday nin waxaan isqabnay muddo 8 sano ah waxna maanan u dhalin ninkii 2 sano kadib wuxuu guursaday gabar kale waxay u dhashay wiil yar ayay u dhashay anigana markaa kadib aad ayaan u murugooday waan dhibtooday markasta niyad jab ayaa igu dhici jiray waxa dhacday maalmo kadib ninkii iyo xaaskiisii labaad ayaa u baxeen dalxiis waxa leegaga tagay cunugii yaraa ayaa leegaga tagay markay baxeen kadib waxaan ku fakiray cunugan inaan dilo oo aan gowraco markaa kadib waxaa ii soo dhacay telefoon intaan ku dhaqaaqin falkii telefoonkii markaan qabtay waxaa telefoonkii laygu sheegay in ninkaygii iyo xaaskiisii labaad ay geeriyoodeen markaa kadib go'aankaygii wuu isbedelay waxaan ku fakiray wiilkan saqiirka ah inaan bahdilo oo aan cadibo oo mar walba aan saxariiriyo markaa kadib waxaan sameeyay inankii yaraa waan garaacay garaacis daran waliba ilaa uu ka miir doormo waxaan ku tuuray qolka maqaasiinka ah asigoo dhahayo maama caano markaaseetii waxaa i qabatay hurdo in yar baan hurdadii intaan ku jiray waa waxaa riyo laygu tusay anigoo lee cadaabayo oo dhagxaan kulul laygu garaacayo markaa kadib waan soo nibdaaday waan soo orday waxaan maqlay cod hoos oo cunugii ku dhahayo maamo caano cunugii yaraa ayaan soo qabtay biyo ayaan siiyey caano ayaan u qasay cunugii wuu weynaado waan koriyey wiligiis wuxuu ii haysan jiray inaan aniga ahay hooyadiisa wuxuu ii dhihi jiray isla ereygii maamo hadda xajkani aan joogo waxaa i keenay cunugii aan dili jiray mar walba markaa kadib cunugii markuu koray waxaan guursaday 3 nin weligayna waxna maanan u dhalin adduunka qofka kaliya ii joogo waa canugan qofka iga fakira waa asaga qofka iga taxadira waa asaga qofka ii jecel waa asaga qof kale dunidaana iima joogto mar walba markaan soo xasuusto sidaan u dhibi jiray waan ilmeeyaa oo waan murugoodaa ma u sheegi karo waxa dhib aan ku soo maray wiilkan hadda waa 32 jir aniguna waxaan ahay 68 jir dhibkayga uma sheegi karo ilaa wuxuu aaminsan yahay inaan ahay hooyadiisa dhabta ah anigana waxaan isku dayay marar badan inaan dilo walaalayaal qisadaanaytu waa qiso aad u xanuun badan ma ogid qof walba maanta aad xasdaysid biri wuxuu ku noqon doono walaal weligaa qof bini'aadan ah ku xadgudbin ilaahay waxaan ugu baryayaa saqiir walba inay hooyadiis ay ka dhimaneen sababtoo ah cunuga saqiirka ee sabiga ah kama helayo sidoo rabo ilaa hooyadii maahine waad ku mahadsantahay dhageysashada muuqaalkani